السلام عليكم asxaabta kusoo dhawaada soo noqosho wanaagsan. Maalmo ka hor waxaana noo soo fasaxay Cloud AI. AI-gan caanka ah oo loo yaqaano Claude. AI-gan loo yaqaano Claude AI. So sanado badan waxaa wadankeena saarnaa xayiraado badan. Finally waxaana noo soo fasaxay Claude AI. Marka muxuu yahay Claude AI? Claude AI waa AI oo family ka ah yani large language modelska lehna qeyb conversation AI ah. Waxaa sameeyey shirkadda loo yaqaano Anthropic iskale AI-gan. Waxayna u sameysay si safety-ga iyo helpful uu dadka u caawiyo kana hortago bad requests-ka yani dadka qaar ay weydiinayaan. So featureska uu leeyahay maxaa ka mid ah? AI-gan waxa uu leeyahay sida AI-yada kale inuu kaaga shaqeeyo text-based taskiska sida analyzing, writing, coding, summarizing, reasoning iyo documentationska waxyaabaha aad u waaweyn. AI-gan waxa kale uu leeyahay maxaa la yidhahdaa qeybo badan sida inaad yani ku shaqeyn kartid project, inaad ku shaqeyn kartid maxaa la yidhahdaa inaad kusoo dirsan kartid wixii skill ah oo kaa maqan. Haddii aad tagtid meeshan skillada yani uu leeyahay skill cusub yani skillada ka maqan aad kusoo diri kartid. Wuxuu kaloo leeyahay connectors wax loo yaqaano inaad ku xiri kartid yani application kale inaad ku xiri kartid sida browser connectors markaa dhahno inaan ku xiri karno meeshan Gmail-ka inaan ku xiraynaa mar walbo wuxuuna yani update walbo ama email kasta lasoo diro inaad meeshan kaga diyaari kartid yani summarizing ku samayn kartid then email saxan u diri karto qofkii email kuu soo diray. Waxaa kaloo ku xiri kartaa meeshan waxyaabaha hadda ugu caansan lagu xiri karo waxaa ka mid ah application-ka loo yaqaano Blender. Blender hadda wuxuu leeyahay inaad inta Blender intaa ugu xirtid Blender waa kana hadduu ku digsan yahay connect aad leedahay. Blender markaa ku xirtid yani wuxuu kaa saacidaa inaa AI-gan chatting intaa la sameysid uu yani chatting intaa la sameysid yani models fiican inuu meeshan kaaga sameeyo adoo inta chatting kaga sameynayo inuu yani modelo fiican uu kuu sameyn karo. So marka meeshas waa ogaanay muxuu kaga duwan yahay ChatGPT iyo Gemini. Claude wuxuu diiradda saaraa ethical alignmentska macnaha waxyaabaha anshaxa ah ayuu diiradda saaraa. Waxaa kaloo leeyahay modelo badan. Modelka ugu caansan waa kana Sonnet. Kuwa kale waxay kaaga baahanayaan Octopus haddaad isticmaalaysid upgrade iyo waxaas kaaga baahanayaan. Kuwan kalena labadan waa iska free modelskan. Modelo kale ka badan oo kusoo dari kartaa meeshan model saddex modelo kasii badan oo arki kartaa. So Claude goormee la aasaasay? Claude waxaa yani lasoo sii daayay 2023 bishii March. Waxaana sameeyey dad OpenAI founderska ahaa ayaa sameeyey oo leh shirkadda Anthropic. Shirkadda Anthropic marka waxay ka dhigtay free iyo paid. So yaa iskale shirkadda Anthropic? Shirkadda Anthropic waxaa iskale laba qof oo walaala Dario Amodeo iyo Daniel Amodeo. Waxayna aasaaseen 2021 waxayna sameeyeen Claude AI waxayna soo sii daayeen 2023. Labadan nin waxay u shaqeyn jireen shirkadda OpenAI ayay u shaqeyn jireen oo founder ka ahaayeen waa ay ka tageen. So marka sidaas ayay yani waxay yani so marka aan fiirino marka qaabka yani u isticmaali lahayd Claude AI. So meeshan waxaa soo fiirsaa inta meeshan waa new project-iga new chat waaye intana waa projects inaad project abuuri kartid oo dhigi kartid new project mashruucaada magaca oo la bixi kartid aad dhigi kartid mashruucayga waa adhahno Comty tier A+ course project noocaas samayn karaa description create project. So marka wuxuu noo sameynaa qayb kaloo meeshaan ah marka intana way ku chatting gareynay meeshaan wuxuu kaaga siinaa instruction. So hadda waxaa leeyahay I wanna start Udemy Comty A+ course. So create new
30-day plan. So 30-day plan ii sameeyaa dhahay, wuxuu ii sameyn doonaa plaankii ii sameyn doonaa. So waxaa leenahay waxaa yani rabnaa 1 to 2 hours. 1 to 2 hours complete from beginner ka dhig. So waxaa iloobay qaabka ay yani ku heli kartid applicationkan Cloud AI. Cloud AI waxaa ku heli kartaa qaybtan, waxaa imaataa browserkaada, new tab dheh, waxaa ku isticmaali kartaa as desktop application, as cloud ku isticmaali kartaa. Markaan qaybtan Cloud AI ayaa tagay, meeshaan hadda yani inta waa ku sameeyey waana la soo degay. Adi marka koowaad wuxuu ku dhihi doonaa create waxaa samaysataa account samayso, waxaa ku isticmaalaysaa soo degsanaysaa mise waxaa ku isticmaalaysaa waxaa la yiraahdaa browserka download. So qaabkan waaye. So download meeshaasaa ku dhufani, waxaa dooranaysaa waxaa isticmaalaysid browser operating systemka isticmaalaysaa. Anada window isticmaala, window waa kula soo degaysaa. Window ARM haduu yahay, haduu yahay Mac OS Linux wuxuu u yahay waa la soo degi kartaa. So markaa la soo degtid oo kana Cloud AI qaabkan soo gali kartaa. Waxaa kaloo leeyahay artifacts waa isla arki doonaa. Waxaa leenahay IT Foundation weega koowaad waxaa noo sameeyey ujeedaa, wuxuu noo sameeyey weega koowaad waxaa qaadataa kan PC component, storage device, expansion cards, table iyo BIOS iyo review quizka. Weega labaad network basic. Haddaan tagno CompTIA A+ waa kana. Waa kana. Weega koowaad wuxuu dhahay ilaa iyo waxaa qaadatiin inta. Then weega labaad waxaa qaadatiin network basic. Weega koowaad waxaa qaadataa ilaa iyo inta. Weega labaadna network basic iyo ilaa iyo review quiz. Weega saddexaad, weega afraadna troubleshooting ka dhamaynaya. Finally course waa bilaabay markaas. So Cloud AI waa AI cajiib ah oo wax kasta kuu samayn karo. Xitaa wuxuu leeyahay customization uu leeyahay oo hadday meesha skillska kaga soo dareynay plugins ku xiri kartaa. Wuxuu kaloo leeyahay meesha markaa su'aalaha weydiinayno, su-aasha markaa weydiinayno styleka wax weydiinayno, hadda normal weydiino, learning wax weydiin karaa, concise, explanatory, waxyaabo badan. Noocadi ku gaarana waa samaysan kartaa. Connectors waa kuwana, plugins waa kuwana, projectiga waa kuwana. Projectkaas haddii abuuran, project cusub waa bilaabi karaa. File iyo folder haddii ay yani YouTube summary ama shay summary aad samaysid, summary haddaad samaysid, hadda like summary soo qaado, hadda summary-gan oo kale soo qaada oo YouTube-ka ah. Meesha markaa bast ku siino Cloud waxaa kaga duwan yahay wuxuu usoo galaa qaab sawir ahaana, halka ChatGPT markaa tagno qoraalkii bast ku dhahnay wuxuu usoo galaa qaab dheer oo loo jeedo. Marka I hope muuqaalka inuu wax ku soo kordhiyo, fadlan hadday taa marka kugu wareysan soo booqatay channelka noo subscribe gareeyo, ku mahadsantahay daawashada.